boqolaal ciidamaha oo taageersan beesha Samaroon ayaa goordhow waxay galeen magaalooyinka Saylac iyo Boorame militariga Soomaaliland oo banaanka magaalada kula dagaalamaya ciidanka beesha Samaroon suldaankii guud ee beesha Samaroon oo amar degdeg bixiyay beesha Ciise oo sheegtay in beesha Samaroon aysan soo gali karin magaalada Saylac xaaladda wararkii ugu dambeeyay Saylac iyo Boorame oo gaartay halkii ugu sareeyay golaha wasiirada Soomaaliland oo goordhow war degdeg soo saaraya iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ku soo gudbin doona 48 saac la soo dhaafay xaalad cakirnaan ah tii ugu darneed ayaa laga soo warinayaa bartamaha magaalada Boorame halkaas oo rasaas ay furaan ciidanka Soomaaliland ay ku dhinteen ku dhawaad 17 ruux oo shacab ah kuwaas oo mudaharaad xoogan ka dhigayay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal hadaba muxuu salka ku hayaa mudaharaadkan dhimashada inta la eg sababay yaasa ka dambeeya mudaharaadkan wuxuu salka ku hayaa waxa ay diidan yihiin dadka reer Boorame in magaalada Saylac lagu soo bandhigo xeerka buuga Ciise oo Soomaaliland ay tiraha la soo bandhigo hadaba dad shacab oo careysan oo iyana leh beesha Ciise xaq uma lahan inay buugan soo bandhigto iyo waxyaabo la mid ah ayaa mudaharaad waxay ka bilaabeen habeennimadii xalay ahayd magaalada Boorame ciidanka biliiska Soomaaliland oo xakameyn la tirada dadka ugu badan ee halkaasi ku sii qulqulaya ayaa la soo warinayaa inay rasaas nool adeegsadeen waxaana tirada dhimashadu ay gaartay 17 ruux halka 23 ruux oo kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen militariga Soomaaliland sidoo kale waxaa la sheegay inay toos u beegsadeen dadka rayidka ah halkaas oo laga maqliyay tacshiradaha qaybahooda kala duwan dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaana la soo warinayaa mid kamid ah salaadiinta dhaqanka beesha Samaroon oo goordhow warbaahinta la hadlay wuxuu tilmaamay inay aar gudan doonaan oo waliba ay jilbaha dhulka u dhigan doonaan inay difaacaan magaalada Boorame ciidanka Soomaaliland laga saaro xildhibaan Maxamed Abiib oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa wuxuu ugu baaqay madaxweyne Ciro inuu si degdeg ah militariga uga saaro magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal isagoo sheegay in wax aan la mahdin ay ka dhici doonaan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal xaqiiqooyinka wararkan helena ayaa waxay tilmaamayaan in xaaladdu hadda ay gaartay meeshii ugu sareysay iyadoo hubka noocyadiisa kala duwan iyo qoryaha doorandooриga u dhacay si weyn looga dareemayo magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal iyo deegaanada hoos yimaada suldaanka guud ee beesha Samaroon wuxuu sheegay inuu fasixi doono dhammaan ciidanka maleeshiyaadka ah ee beesha Samaroon kuwaas oo ku sugan gudaha iyo banaanka magaalada Boorame isagoo sheegay in dulqaadku uu ka dhamaaday oo aysan aqbali doonin in dadka rayidka ah xabad loo adeegsado suldaanku wuxuu hoos ka xariiqay in waxa hadda ka socda Boorame ay yihiin dulmi cad isagoo madaxweyne Cirana ku eedeeyay inuu leeyahay mas'uuliyadda wixii ka dhacay magaalada Boorame iyo deegaanada hoos yimaada saraakiil oo ka tirsan militariga Soomaaliland ayaa waxay tilmaameen in madaxweyne Ciro si nabadoonnimo ah uu ku wajahayo xaaladda isagoo ka baqdin qaba wixii ka dhacay laascaano oo kale inay ka dhacaan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal salaadiinta ay ka go'do talada beesha Samaroon oo goordhow yeeshay kulan degdeg ah waxay soo saareen amar la yaab iyo ama ka ku noqday Soomaaliland kaasi oo ahaa in si toos ah dagaalka ay u galaan ciidanka beesha Samaroon taas oo hadii ay garaadada ama ay salaadiintu ka mir dhaliyaan dabcan god ku ridi doonto mustaqbalkii beesha Samaroon iyo in ay difaacanayeen magaalada Boorame sidaas lamida dad aad moodi inay ka faa'iideysanayaan xasarada halka ka taagan ayaa la soo warinayaa inay abaabulayaan ciidamo dadka deegaanka odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta haweenka ururada bulshada rayidka iyo dhalinyarada waxayna rabaan in mudaharaadku uu sii xoogaysto taariikhda dib yar aan ku xasuusiyo wixii ka dhacay laascaano waxa hadda ka socda Boorame ayay sidaas oo kale laascaano uga bilowdeen hadii Soomaaliland aysan si degdeg u xalina xaaladdu waxay tagi doontaa meel aan waxba laga qaban karin oo sheekadu faraha ay ka bixi doontaa dad badan oo arrimaha la socda ayaa la aaminsan yahay inay ka faa'iideysan doonaan xaaladan iyagoo dabcan markan u arka inay tahay arrintu mid cajiib ah oo hoos ka sii ah isla markaana si degdeg ah looga faa'iideysan karo laakiin hadii militariga Soomaaliland magaalada ay ka baxaan oo ay qaataan amrada madaxweyne Ciro iyo taliyaha militariga Soomaaliland dabcan xaaladdu way qaboobi doontaa oo sidii la rabay ma noqon doonto sheekaduna waxay noqon doontaa in si hoose xaajada loo xaliyo
boorama hadda waxay la circiiraysaa ciidamo dhinaca magaalada saylac ayaan eegayaa beesha saylac degta ee ciise la yiraahdo laftirkoodu waxaa la leeyahay faa'iido ayay u arkaan in aan magaalada boorama xabadu ay ka bilaabato sababtana waan ku raacinayaa beesha ciise ee degta magaalada la yiraahdo saylac iyagu maba ogolaba mana rabaan mana aqbalayaan mana doonayaan mana raba inay arkaan Samaroon oo degay oo mustaqbalka wax la qaybsanaya aayihiisana iyo ka tashanaya siyaasi lamid ciise waxay leeyihiin boorama lughaye saylac ceelgaal waxay ka tirsan yihiin dhulka ciise halka beesha Samaroon ama gudobursuhu ay leeyihiin hadii xaaladda si degdeg wax looga qaban waayo tallaabooyin aan qaadaynaa oo aan la mahdin inuu eegi doonaa marka iyadoo warar soo baxayana ay leeyihiin Djibouti ciidamay soo direysaa iyo hub ay soo direysaa waa war kale oo magaalada soo galay waynu eegi doonaa iyadana